xilliga dhulkii iyo noolihii hore waqooyiga Mareykanka waxaa ku nooleed koox badan oo dhirta daaqda kuwaasoo u ahaa cunto aad u weyn xayawaanada taariikhdii hore ee hilibka cuna. Ismaalodon waxaa loo malaynayaa inuu diiradda saari jiray kuwa aad ka waaweyn iyagoo isticmaali jiray khibradahooda iyo farsamooyinka ay ku lug lahaayeen. xooggooda iyo khibradda dilkooda ma ahayn mid ku filan nooc cusub oo ka mid ah istaraatiijiga dagaalka hadda waa mid loo baahan yahay. taariikhdii hore ee dhulka Ice Age dilaayada noocan oo kale waxay haysteen cunto aad u badan oo ay cuni karaan. waxaa dhulka laga helayay fardaha, geela iyo loogisada bison aad ku waaweyn. Grindslowka xajmiga weyn iyo marooyadii hore ee mammothka ayaa diiradda u saarnaa. balse haddii miciyo dheerayaashan ay ahayn kuwa wada shaqaynaya xayawaankan weyn maaha kuwa dhulka dhigi kara walow miciyaha dilaagaba ha lahaadee. sida badankooda bisidaha hadda jira sida tigerkoo kale waa mid kale waarsada ah. libaaxa keliya ayaa si kooxa u nool kuwaasoo si iskaashi leh u dhuldhigi kara xayawaan weyn. ma jirto cid caddayn u haysa in miciyo dheerayaash sidoo kale ay ahaayeen kuwa koox ah, balse waxyaabo lagu arkay baa jira. lafaha dhowrka ee laga soo ururiyey Triceratops haraadiga lafaha isugu jira 2500 oo shakhsiyadood kuwa oo ah kuwa miciyaha dhaadheer ayaa halkaas laga qoday. kuwa inta badan ay cunayeen waa kuwa cawska daaqa, balse lafaha laga helay Triceratops boqolkiiba 10 ayaa ah keliya kuwa dhirta daaqa. waana wax lid ku ah waxaad rajaynaysay. lafaha badankooda la helay ayaa waxay ahaayeen kuwa hal meel laga helay kuwa dugaagga ah, halka kuwa dhirta daaqana uu ahaa mid keliya oo aad u weyn. saynisyahanada ayaa rumaysan in xayawaankan uu ka mid ahaa kuwa sida kooxda u jooga, taasoo ah koox badan oo miciyo dheerayaasha ah inuu mararka qaar guri ka galo mid ka mid ah kuwa dhoobada ku dhegay iyaguna ay sidaa ku galaan iyagoo badan. taas waxay macquul ka dhigaysaa in miciyo dheerayaashan ay ahaayeen kuwa koox u nool sida libaaxa maanta jooga oo kale. kooxda libaaxa ah waa mid ay ka dhaxayso walaaltimo dhanka bisidaha ah. sida caadada ah waa kuwa ka kooban 4 ilaa 20 oo uu ku dhex jiro aarkooda. goolashu waa kuwa ugaarsada si koox ah, taasina waxay siinaysaa inay dilaan wax weyn. dilidda aad u weynna waa cunto aad u weyn. faa'iidada kale ee ku jirta in si kooxa loo noolaado haddii mid ka mid ah xubnaha libaaxa uu xanuunsan yahay ama uu dhaawac qabo uu cuno raqda maadaama uusan ugaarsan karin. lafaha miciyo dheeraha yaala La Brea paleontologistaha lagu magacaabo Chris Shaw ayaa sheegay miciyo dheerayaasha inay u dulqaadan karaan haddii uu soo gaaro dhaawac aad u weyn. waa dhaawac sababi kara inay joojiyaan ugaarsiga. waxaan halkan ku haynaa dhanka midig ee sinta ee bisidaha miciyaha dheer in shakhsiyan ay tahay mid horumarsan. dhanka kale laftan waa bisad uu wareegtay sinteeda si xaddi aad u daran. wareegga keligiisa ma ahane murqii halkan ku fadhiyey sidoo kale oo kuwa burburay oo infectionsku aad u gaaray. xayawaankan waa mid ku noolaan kara xaaladdan muddo bilo ah hadduusan gaarin muddo sannado ah. wuxuu u arkaa inuusan noolaan karin xayawaan dhaawac sidana qaba haddii uu keligiisa yahay. macnaheedu waxay tahay haddii laftan ay raysatay inay caawiyaan koox kale oo kuwa miciyaha dhaadheer ah. Shaw waxa uu rumaysan yahay in xayawaano badan ay si wada jira u shaqeeyaan oo haddii mid uu dhaawacmo kan kale uu la cuno waxa ay soo ugaarsadeen. haddii aad ugu yeerto koox ama xayn runtii waa mid ay su'aal ka taagan tahay kuwan haddii ay yihiin kuwa kooxo ama qoysyo u noolaan jiray. balse fikirka kuwa kale haddii miciyo dheerayaashan ay ahaayeen kuwa iscaawiyo isquudiya waa mid aad loogu kala duwan yahay. xaqiiqada kale ee u baahan in laga fakaro ayaa ah ma cuni jireen mid iyaga ka mid ah. anigu ma rumaysni in Smaalodonkan uu ahaa mid kooxo ah oo social group ahaa. xiriirka wada joogga xayawaanada dhan waa mid ay ka mid yihiin marka loo eego dabeecadaha ayga, balse ma jirto sabab loogu qaadan karo inuu ka mid ahaa kuwa waaweyn ee wada jooga.
sida yeyda hadda nool oo kale. Yeyda oo dhan kuwa lab iyo dhadig ahba waa kuwa isla nool si koox ah, iyagoo faraq yar u kala dhexeeyo mararka qaar. waxaa laga yaabaa Smilodon xiriirka ka dhexeeya inuu yahay kan sida yeyda oo kale amaba libaaxa. libaaxoo kale marka laga hadlo jinsigu waa mid aad u kala duwan. aarku waa mid aad u weyn kana micyo dheer goosha ah, balse faraqu maaha waxay ku kala duwan yihiin dhanka ugaarsiga. goosha ayaaba ah tan mar kasta ugaarsiga ku lug leh. micyaha dhaadheer iyo xoogga weyn aarka libaaxa ah, taasi macnaheedu waxay tahay inuu difaaco kooxda kana ilaaliyo xuduudaha. mararka qaarna uu koox kale libaaxa duulimaad ku qaado. balse micyo dheerahan labada jinsiba waa kuwo isku cabir ah, labaduwana waa kuwo micyahoodu aad u dhaadheer yihiin. runtii uma eko qaab libaaxeed. haddii aan dhankaa ka eegno, aararka libaaxa waa kuwo dagaalama mar kasta, iyagoo kooxo kale la wareegaya. hadday arrinkaa wadaagi lahaayeen waxaa la arki lahaa inay kala weyn yihiin oo muuqaalkiisu qaar kale ka weyn yahay. manaha Smilodon waxaan ka aragna hadda wax noocaas ah, in labada jinsiyaba ay yeeshaan micyo aad u dhaadheer labka iyo dhadigaba. waxaa jirtay baa laisleeyahay in labka qaab kale uu ku soo jiito dhadigga oo isaga u gooni ah. aad bay u adag tahay in la rumaysto in micyahan cabirka waaweyn ay wax kala qabanayeen marka loo eego qaabkay u dhisan yihiin, balse samaysankooda unbaa ilaahay sidan u dooray. Smilodon fatalis waxa uu ka mid yahay 7 nooc oo kuwa micyaha dhaadheer ah, kuwa oo dunida waa hor joogi jiray. waxyaabaha ay dadka fahamsaneen waxaa ka mid ah inuu kan ahaa mid ka mid ah bisadaha dunida joogi jiray. inkastoo bisadaha hadda jooga ay micyo dhaadheer yihiin, balse naasalaydii hore waa kuwo ku lug lahaa micyo dhaadheer, kuwa oo ka badnaa 10 jeer. paleontologistaha la yidhaahdo Paul Matthew waxa uu rumaysan yahay in micyahan dhaadheer ay ku lug leeyihiin inay jeexaan maqaarka adag ee xayawaanada qaarkood. Matthew waxa uu tijaabinayay DNA-da Homotherium ee la bahda ah bisadaha micyaha dheer ee Smilodon, kuwaas oo laga helay agagaarka ay Alaska iyo Canada ku kulmaan, halka oo bilowgii bini'aadamka ay soo gaareen. muddo hadda laga joogo 12,000 sano waxaa soo baxday in Homotherium ama xayawaankan ceerbgay uusan cunaynin marka laga reebo maroodiga. waxay ila tahay inay tahay tijaabo nagu filan. waxaa soo baxday micyo dheerahan in qaab dhismeedkiisu uu ahaa mid soo maray taariikho aad u badan, balse inta badan ugaarsanayay ugaarta maqaarkeedu aadka u adag yahay. micyahan aadka ugu dhaadheer marka loo eego kuwii isaga ka dambeeyey iyo ka horreeyay ceerbgo'ay iyo jirka murqahan xoogga leh. Smilodon ma ahan kaliya mid dilaya maroodiga aadka u yar, balse sidoo kale midka qaangaarka ee weynaaday. haddii uu ahaan lahaa mid keli ama koox u ugaarsadaba, waxay u muuqataa inuu ahaa mid u diyaarsan inuu dilo kuwa aadka u waaweyn.